بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن داوديال halkani waa Rajo Cable TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka layaabka dunida oo aad xiliyadan oo kale aad ka daawataan Rajo Cable TV toddobaadkan qodobada aad barnaamijka ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona haduu alla weyne idmo mudeel adeegiisa bilaa lacag dadka burburan looga dhigay nin dawarsi ka dhex bilaabay rakaabkii ay diyaaradda ku wada safraayeen iyo arrimo qariib ah oo kala dhex kulmay iyo jeel lagu soo kordhiyay akhriska maxbuuska heerar kala duwan wadankeedu ku yaala qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka waxa idin soo saaray Ashraf waxaana idin soo jeedinaysaa anigoo Salma Cabdullaahi Xasan Xalane dhanka kaamirada waxa iga saaciideynay walaalkay Maxamed Cabdiraxmaan Karaama waa markale barnaamijka layaabka dunida waxaad ku soo dhawaataan qodobadii ay idin soo dul maray oo intaas ka faahfaahsan haddii aan ku bilaabo mudeel adeegiisa dadka burburan lacag la'aan looga dhigay dhacdo ka mid noqotay arrimaha layaabka adduunka ayaa maamulka hudeelka ku yaala dalka Shiinuhu ku kacay dhawaan taasoo la xidhiidhay adeeg bilaa lacag ah oo macaamiisha qaarkood u fidin doono hudeelkaas gaar ahaan kuwa buuxiya shuruudaha aad looga wada yaabay oo ku xidhan inuu qofka rag iyo dumar helo adeega bilaashka ah sida inta badan warbaahinta dalka Shiinuhu ku warantay hudeel ku yaala dalkaas oo lagu magacaabo Naho Restaurant ayaa xayeysiis cusub oo dhawaan warbaahinta ku daahiyay adeegyada bilaashka ay ku soo daray cunto iyo adeeg dheeraad ah oo loo fidin doono rag aad ku burburan oo miisaankoodu 140 kiilo gaadhay waxa kale oo adeegan lacag la'aanta ah heli doona haweenka dhuudhuuban ee miisaankoodu 35 kiilo iyo wixii ka hooseeya yahay sida ay xayeysiiskaas dhigayo lab iyo dhadig mid kasta oo shuruudahan buuxiya waxa isaga iyo dadka la socda la siin doona adeeg cunto iyo mid sharaab oo bilaash ah sida qofku uu xaqiijiyo inuu bixin karo shuruudahaas waa inuu qiyaasaa miisaanka albaabka laga galo hudeelkaas ku yaala kaas oo markuu ku ogaado miisaankiisa inuu gaadhsiisan yahay qiyaasta la doonayo uu ku bishaareysto adeegyo bilaa lacag ah inkastoo dadka badankooda ula yaabeen xayeysiiska hudeelkan haddana waxaa suuragal ah in dadka buuxiya shuruudahaas laga heli karo dalka Shiinaha oo isaga ah kan dadka ugu tirada badan dunida ku nool yihiin sida ay ku warantay jariirad ka soo baxda dalkaasi milkiilaha hudeelka ayaa sababta uu go'aankan u qaatay ku tilmaamay mid uu macaamiishiisa ku dhiirigelinayo kuna doonayo sida ay fursad ugu heli lahaayeen tartan dhiirigelin iyo jirabaad isugu jira markaan haddii aynu eegno qodobka xiga oo ah nin dawarsi ka dhex bilaabay rakaabkii diyaaradda ay ku wada safraayeen iyo arrimo qariib ah uu kala dhex kulmay arrin ka mid noqotay dhacdooyinka ugu yaabka badan adduunka ayaa laga soo wariyay diyaarad kuwa rakaabka qaada ah oo laga leeyahay dalka Qatar diyaaraddan oo u kala gooshaysay dalalka Qatar iyo Iiraan ayaa markii ay ka dahday dabaha diyaaraduhu fadhiistaan ee magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar uu qof ka mid ah rakaabkii ku safrayay ka bilaabay dawarsi sida ay ku warantay jariiradda Daily Mail ee dalka Ingiriiska ka soo baxda ninkan diyaaradda ka dhex bilaabay dawarsiga oo dhalashadiisa Iiraani tahay ayaa ka yaabiyay rakaabkii diyaaradda ay ku wada safraayeen oo aan u baran cid ka dhex dawarsata diyaaradaha dhexdooda qaybihii dambe ee barnaamijka layaabka dunida ayaan isla soo gaarnay daawadayaal markaan haddii aynu eegno qodobkii ugu dambeeyay oo ahaa jeel lagu soo kordhiyay akhriska maxbuuska uu kaga sameynayo heerar kala duwan wadankeedu ku yaala dalka Brazil ayaa hab cusub oo ula dhaqmo maxaabiista dalkaas ee ku xidhan jeelasha ay dadka badan waana nidaam xukunkooda lagu soo gaabinayo nidaamkan ayaa ah akhriska buugaagta oo lagu tartamo waana habka loogu magac daray badbaadinta akhriska maxbuuska akhriya bishii hal buug waxaa muddada xadhigiisa ka go'aysa 4 maalmood sanadkiina waxaa loogu talagalay inuu akhriyo 12 buug taasoo ka go'i doonta 48 maalmood jeelashan waxaa ku jira maxaabiista ugu caansan dalkaasi ee caadeysta dambiyada kuna soo noqnoqda xabsiyada buugaagta loogu talagalay ayaa kala ah buugaagta suugaanta falsafada buugaagta cilmiga iyo horumarka iyo maadooyinka loo yaqaan classic oo ah maadooyinka aqoonta Greek hore iyo suugaanta si ay qofka isbedel ugu sameeyaan maxbuuska marka uu dhameeyo buuga waxa uu sameyn doonaa inuu si kooban u soo bandhigo qoraalka buuga isagoo aan wax isbedel ah ku sameyn isla markaana uu ilaaliyo baaragraafyada shuruucda iyo xuduudda qoraalka waana inuu ahaado qoraalkiisa mid la akhri karo guddi gaar ah ayaa go'aamisa marka maxaabiistu soo gudbiso qoraalkooda kuwa u qalma in la siiyo xadhig dhimista isla markaana qoraalkoodu uu noqdo mid gaadhay heerkii laga doonayay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijka layaabka dunida aynu toddobaadkan ku soo qaadanay qodobo xasaasi ah waxa idin soo jeedinaa anigoo Salma Cabdullaahi Xasan dhanka kaamirada waa Mr. Karama sidaas iyo nabadgelyo